kulanti wacan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararka caalamka iyo Soomaalida habeen wanaagsan waa kowda bisha kuwa sanada 2021 qodobada warka habeenimo ugu waaweyn ee aad ku daawan doontaan waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay kulamada Muqdisho uga socda madaxda maamul goboleedyada iyo midowga musharaxiinta oo la isku mari laayahay iyo abaabul banaanbaxyo waaweyn oo ka socda magaalada Muqdisho iyo waliba xiisada oo sii kordhaysa Axmed Madoobe iyo Dani oo ku guul dareysay laba arin oo ay qorsheeyeen maxay doorashada Jawaari ka sheegaysaa fashilka ku yimid jadwalka doorashada Israa'iil oo hubkeeda difaaca gantaalada heegan gelisay iyo weerar laga cabsi qabo Xasan Sheekh oo beeniyay arin la sheegay in mucaaradka ay qorsheynayeen iyo farmaajo oo dhulgariir horseedaya Soomaaliya intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan warar kala duwan ayaa ka soo baxaya kulan magaalada Muqdisho uga socda madaxda maamul goboleedyada dalka gaar ahaan kuwooda Hirshabeelle Koonfur Galbeed iyo waliba Galmudug ee taabacsan dowladda federaalka iyo midowga musharaxiinta Soomaaliya shirka ayaa waxa uu ka socdaa hotelka Dikeel ee magaalada Muqdisho kulanka ayaa looga hadlayaa ismariwaaga ka taagan doorashada iyo go'aankii xukuumadda ee ahaa in doorashada la guda galo taas oo qoorqoor Cali Guudlaabe iyo Cabdicasiis Lafda Gareen ay qayb ka yihiin ila wareedyo ku dhow kulanka ayaa u sheegay warbaahinta in madaxweyne goboleedyada ay ballan qaadeen in mar kale xal raadin doonaan ka hor inta aan la guda galin qabashada doorashada xogaan helnay ayaa sidoo kale sheegaysa in madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ay ka dalbadeen in midowga musharaxiinta ay u soo gudbiyaan magacyada xubnaha ku jira guddiga doorashada lagu muransan yahay ee cabashada ka keeneen waxay sidoo kale ugu baaqeen midowga musharaxiinta inay la hadlaan maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland si ay u soo magacaabaan guddiyada doorashada ee aanay wali soo gudbin si howlaha kala taagan la isugu soo dhaweeyo wararka ayaa sheegaya in si gaar ah madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Gareen qaatay door ku saabsan xalka arrimaha cakiran iyo inuu raadiyo dhinaca maqan dhinaca kalena banaanbaxyo waaweyn ayaa laga abaabulaya magaalada Muqdisho kuwaas oo laga soo horjeedo khilaafka ka taagan arrimaha doorashada wararka inaga soo gaaraya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya inuu socdo qorshe la doonayo in banaanbaxyo ballaaran ay kaga dhacaan magaalada Muqdisho toddobaadkani 14 bishan oo khamiis ku aadan ayaa laga yaabaa in soo baxan isku yimaadaan shacab aad u fara badan dibadbaxa ayaa waxaa lacag ku bixinaya mucaaradka waxaana la sheegay in musharaxiinta mucaaradka ay ka qayb gali doonaan 17 degme ee xamar ayaa la qaban qaabinaya dibadbaxyadaasi kuwaas oo dadka abaabulaya ay ka qayb noqonayaan dad aad u fara badan waxa uu sheegay qof ka mid ah dadka abaabulaya dibadbaxa inuu yahay mid nabadeed oo aan carqalad rasmi ah ku jirin balse laga soo horjeedo doorasho boob ah oo Villa Soomaaliya ay markaasi sameeyso bila ka hor ayaa sidan oo kale waxa magaalada Muqdisho ugu fashilmay dibadbaxyo looga soo horjeeday dowladda Soomaaliya balse la sheegay in sidii la rabay u dhici waayeen Kismaayo iyo Garowe ayaa isla khamiis laga yaabaa in banaanbaxyo dowladda doorashada ay qabanayso looga soo horjeeday ka dhacaan ciidamada booliiska gaarka u tababaran Haramcad ayaa loo diyaariyay inay ka hortagaan banaanbaxyo walba oo dowladda looga soo horjeedo qaybaha hore wararka Soomaalida ayaa daawanaysan halka nagala socotaan waa shabakada wararka maanta labada nin ee la kari laayahay ee maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Axmed Madoobe iyo waliba Saciid Cabdilaahi Dani ayaa ku guul dareysay laba arin oo ay qorsheeyeen sababta ay madaxweynayaasha maamulada Puntland Jubbaland iyo mucaaradka ay madaxweyne qoorqoor ugu ogolaadeen inuu dhexdhexaadiyo iyaga iyo dowladda ayaa la ogaaday inay ahayd laba ujeedo oo culus sida aan ka soo xiganay mas'uuliyiin sarsare maamulada iyo mucaaradka ayaa qoorqoor u arkayay nin dhow oo ay ka soo wareejin karaan dhinaca Villa Soomaaliya ama ugu yaraan u keeni kara dantooda waxaana muuqata in labadii qodob aysan hirgelin oo ah kala fogeynta qoorqoor iyo madaxda dowladda ama helista tanaasulka dowladda ee muranka dowladda siyaasiyiinta mucaaradka ee musharaxiinta madaxweyne Dani Axmed Madoobe iyo gudoomiye Cabdi Xaashi ayaa ku heshiiyay in marka hore la kala dhantaalo saddexda maamul goboleed ee taabacsan madaxweyne Farmaajo waxaana qofku ugu dhow loo arkay qoorqoor oo dib u gurasho sameeyay lamana oga qorshaha xiga ee mucaaradka haddii mucaaradka Jubbaland Puntland Cabdi Xaashi qoorqoor dhinac noqon lahaayeen waxay dhankooda u leexin lahaayeen miisaanka siyaasadda dalka balse taasi ma dhicin waxa muuqata inay sii adkaatay xaaladda Soomaaliya ee dhanka doorashooyinka isla markaana wax kasta laga filan karo deganaanshaha Soomaaliya haddii aan la helin tanaasul dhanka siyaasiyiinta ahi
qaybaha dhexe wararka Soomaalida ayaa daawanaysan halka nagala socotaan oo shabakada wararka maanta markana waxaynu eegaynaa maxay doorashadii Jawaari ka sheegaysaa fashilka ku yimid jadwalka doorashada Soomaaliya maanta oo kale 4 sano ka hor 11 Janaayo 2017 kulan ay magaalada Muqdisho ay ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka tobanaad ayaa lagu doortay Professor Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari inuu noqdo gudoomiyaha golaha shacabka 254 xildhibaan oo xilligaasi goobjoog ahayd kulanka ayaa u kala codeeyay musharaxiinta kala ah Idris Dhaqtar xildhibaan Cabdifitaax Geesi Cabdirashiid Maxamed Xidig Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari 250 xildhibaan 254 xildhibaan ee kulanka soo xaadiray waxa ay 140 kamid ay codka ay siiyeen Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari taasoo ka dhigtay inuu ku guuleysto gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka tobanaad laba sano kadib 9 bisha afraad ee 2018 madaxweyne Farmaajo oo doonaya in meesha laga saaro la xisaabtanka baarlamaanka ee xukuumadda ayaa abaabulay mooshin xilka looga qaadayo Jawaari taasoo keentay in Jawaari uu xilka iska casilo maanta 4 sano kadib dalka kama muuqata doorasho la isla ogol yahay oo ay u dhan yihiin saamilayda siyaasadda iyadoo ay u dhamaatay muddaxileedka dastuuriga ee baarlamaanka labadiisa aqal waxaana markii labaad fashilmay jadwalkii ay soo saareen guddiga doorashada kaasoo lagu xusay in 5 bishan la soo gudbiyo liisaska musharaxiinta aqalka sare doorashada aqalka sare ay ka bilaabato dalka 7 bishan oo ku beegneed maalintii Khamiista ahayd ee isbuucii la soo dhaafay Israa'iilna waxa ay hubkeeda difaaca gantaalada heegan gelisay iyadoo markaasi weerar laga cabsi qabo in halkaasi lagu qaado maamulka Israa'iil ayaa ka cabsi qaba in weerar lagu soo qaado sida daraadeedna dhanka koonfureed waxa ay geysay gantaalada difaaca sida ay soo wariyeen warbaahinta maxalliga sida xogta lagu helay wadooyinka magaala xeebeedka dhanka koonfureed ku taala Ileeda ayaa lagu arkay hubka difaaca Patriot ee dhexda ka qabta gantaalada balaastika iyo waliba hubka Iron Dome ee ka hortaga gantaalada ridada gaaban warbaahinta waxay warisay in maamulka Israa'iil ay cabsi xoog leh ka qabaan in weerar uga yimaado dawladda Islaamiga ee Iran kuwaas oo wali ka caraysan dilkii loo geystay hogaamiyahoodii dhanka sirdoonka ee General Qasim Suleimani Iran waxay markaasi ku dhawaaqday inay sameynayso argoosi dilkii generaalka waxa ka soo wareegatay muddo 1 sano sida daraadeedna maamulka Yahuudda tan iyo bilowgii sanadka waxay difaac ugu jireen weerar ay kaga cabsi qabeen Iran sidoo kale ila wareedyo kale ayaa sheegay in cabsi baasan ay soo maamulka Israa'iil maadaama xiisada gobolka ay kacsan tahay waxaana ay sugayaan dhaarinta madaxweynaha cusub ee Mareykanka Joe Biden oo ku beegan 20 bishan ugu dambeyntiina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa dhulgariir u horseedaya Soomaaliya go'aanka dawladda madaxweyne Farmaajo ku shaaciyay inay ku qabanayso doorashooyinka halka dhinac waxay wada qod xal u horseedaysa Soomaaliya sida ay wareysay warbaahinta jaraa'idkan ayaa qormo uu ka diyaariyay go'aankaasi xukuumadda waqtigii ka sii dhacay ilaamisay Sabtidii asbuucan ayaa faaladiisii ciwaan ugu dhigay Farmaajo wuxuu Soomaaliya u horseedaya dhulgariir maqaalka oo la daabacay 9 bishan Janaayo sanadka cusub ee 2020 ayaa lagu sheegay in go'aankaasi uu wiiqay xasiloonida wadanka oo silsilad ugu xiran damaca Farmaajo ku doonaya dib u doorashada aan heshiis lagu ahayn kadib kulan ay Farmaajo iyo taliyaha sirdoonka Fahad Yaasiin Daahir kulan kula yeesheen Villa Soomaaliya ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweynaha Galmudug Qoorqoor ayaa Sabtidii waxay ku dhawaaqeen go'aankaasi shirkaasi lagu falanqeeyay xaaladihii ugu dambeeyay ee doorashooyinka 2020 waxay qayb ka ahaayeen hogaamiyaasha Koonfur Galbeed iyo Hirshabelle saddexdan maamul waxay daacad u yihiin dawladda Farmaajo Roble iyo Qoorqoor ayaa si wada jir ah u sheegay in go'aankaasi ay qaateen si aan waqti loogu lumin shacabka talaabadan waxay ka dambeysay markii uu fashilmay dadaalkii ugu dambeeyay xalka loogu goobayay muranka taagan dadaalada waxa wada Qoorqoor kaasoo garowe kula kulmay madaxda Puntland Jubbaland iyo xubno kamid ah midowga musharaxiinta iskuna raacay qodobo loo gudbiyay Villa Soomaaliya si ay ugu soo jawaabaan Qoorqoor ayaa sheegay in jawaabta Villa Soomaaliya uu la wadaagay madaxda uu la kulmay balse dhankooda aysan ka soo jawaabin fariintiisa haddii ismariwaagu sii jiitamo isla markaana madaxda Soomaalida heshiin weydo waxaa suuragal ah inay beesha caalamka ay soo farageliso kala taga hase ahaatee sheegashada Qoorqoor waxaa siyaabooyin kala duwan u beeniyay madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam midowga musharaxiinta iyo afayeenka aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Cabdi Xaashi
madaxda ayaa ka dhawaajiyay in qoorqoor uu ka been sheegay qodobadii ay isla meel dhigeen isla markaana ay siiyeen 3 casho oo Villa Soomaaliya ku ogoleysiyay inay miiska wadahadalka ula fariiso saamileyda siyaasadda go'aanka dawladda ku shaacisay inay ku hirgelinayso doorashooyin aan loo dhameen ayay tibaaxeen inuu horseedayo kala tag ayna qatar ku tahay midnimada wadanka musharax madaxweyne Daahir Maxamuud Geele oo wasiirka warfaafinta ka soo noqday dawladda Farmaajo ayaa ku eedeeyay hoggaanka dalka inay iska weynaysiinayaan inay wada xaajood la galaan daneeyayaasha siyaasadda Soomaaliya musharaxiinta ayaa xalay magaalada Muqdisho kula kulmay lafta gareen qoorqoor iyo guud laba dood adag ayay ka yeesheen arrimaha soo kordhay lafta gareen waxa uu codsaday in halkan fursad loo siiyo inuu dhameeyo khilaafkani guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa naga inta